tan iyo markii la doortay madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay warbaahinta iyo wariyaasha ay la kulmeen tacadiye ka baxsan xuquuqda aadanaha iyo tan shaqo ay u hayaan bulshada iyo sidoo kaleeto dalka. haddaba waxaynu warbixintan idinkula wadaagaynaa dhibaatooyinkii loo geystay saxafiyiinta iyo sidoo kaleeto xarumaha warbaahinta Soomaaliya muddadii u dhaxaysay 2017 ilaa iyo sidoo kaleeto 2022 oo ah muddadii talada dalka uu hogaaminayay Farmaajo. sanadkii 2017 sida ku cad xogta Ansam 8 saxafi oo shaqadooda ku guda jira ayaa la dilay intii u dhaxaysay Febraayo 2017 ilaa iyo Julay sanadii 2018 oo ay ku jiraan saxafiyiin ka kala shaqaynayay warbaahinada Kalsan iyo SBS TV kuwaasi oo la dilay. waxaana sanadkaasi uu ahaa kii ugu horreeyay ee madaxweynaha Farmaajo taa oo ay soo ifbaxday durbadiiba cadaadis ka xoogan ee taliskiisa ay u geysanayaan saxafiyiinta iyo sidoo kaleeto xarumaha warbaahinta dalka. 2018 waxa uu noqday sanada xukunka iyo kooxda Farmaajo ay meesha ay ka sii wataan caburinta iyo sidoo kaleeto tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda. intii lagu guda jiray sanadkaasi 2018 20 saxafi ayaa sifo aan sharci ahayn xabsiga loogu dhaadhiciyay iyadoo la dilay hal kaamiramaan kaasi oo ku baxay gacanta ciidamada dawladda sida ay diiwaan geliyeen UN-ka. sanadii xigtay 2019 sida ay qortay hay'adda qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha 2019 ilaa iyo 81 saxafi ayaa jir ahaan waxyeelo loo geystay waxaana la xiray oo aan sifo sharciga aan loo marin xabsiga loo dhigay 53 saxafi. dhammaan tacdiyadan ayaana ka dhacay koonfurta Soomaaliya iyo meelaha uu ku badan yahay xukunka maamulka Farmaajo. sanadkii xigtay 2020 waxa la dilay 2 saxafi halka 4 kaleeto la dhaawacay. kala bar maamulka Farmaajo ayaa ka dambeeyay waxa kaleeto xabsiga loo taxaabay 56 saxafi oo uu ku jiro taftiraha guud ee goobjooga Cabdicasiis Axmed Gurbiye halka albaabada loo laabay 5 warbaahineed oo maxalli ah kuwaasi oo ka howlgalayay gudaha dalka. sanadkii xigay 2021 sida ay baahisay STS oo ah urur u dooda xuquuqda saxafiyiinta 65 wariye ayaa iyada oo aanan loo marin sifo sharciga waafaqsan xabsiga loo taxaabay halka 7 warbaahineed la xiray iyada oo la dilay 2 saxafi oo ka howlgalayay gudaha Soomaaliya. si kastoo ay taasi u jirto intii uu dalka joogay Farmaajo waxaa dalka isaga cararay oo ka baxsaday 46 wariye kadib markii ay handadaadi iyo sidoo kaleeto cagajuglayn ay kala kulmeen nidaamka maamulka Farmaajo ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada sanadii 2016 waxa uu sheegay in saaxiib dhow uu ka dhigan doono warbaahinta loona baahan yahay warbaahintu dawladda inay la xisaabtanto. balse markii uu yimid taliskiisa waxa uu cadaawada koobaad u qaaday warbaahinta iyo wariyaasha. Bimaalow Center moolka Bimaalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. xog balaaran ma naga siin kartaa? haa moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah. barta aad ka helayso qiimuhuna boqonogoys maaha. tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan. qalabka electroniga sida qasaaladaha firinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh. dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya. qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay. Bimaalow Center xarunta ganacsiga ee Bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee Macalin Bimaalow.